وأفريي bishii 11 sanadkii 1984 diyaarad ay leedahay shirkadda Somali Airline ayaa ka kicitintay gegada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wajhadeedu waa magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga 30 daqiiqo markii ay hawada ku jirtay ayaa waxa la wareegay oo afduubtay 3 nin oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda waxay u jihayeen magaalada Addis Ababa waxayna qafaasheen diyaaradii iyo rakaabkii ay wadayba dhacdo ahayd tii ugu horeysay ee nooceeda ahayd oo ay la kulmaan diyaaradihii Somali Airline ayay ahayd waxaana bilowday howlgal lagu badbaadinayo diyaaraddaasi haddabayay ahaayeen raggani maxay ahayd sababta ay diyaaradda u qafaasheen qaabkee awood ugu yeesheen inay diyaaradda qabsadaan sideese loo soo badbaadiyey diyaaraddii iyo rakaabkeediiba dhammaan su'aalahan ayaynu ku dul istaagi doonnaa muuqaalkeennan maanta magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Waaberi Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta shirkaddii Somali Airline waxaa la aasaasay sanadkii 1964 waxaa wada yagleelay dowladdii Soomaaliya iyo shirkaddii la oran jiray Alitalia oo laga lahaa dalka Talyaaniga dowladda Soomaaliya ayaa lahayd 50% saamiga diyaaradda halka Alitalia ay lahayd 49% sanadkii 1977 ayay si buuxda dowladdii Soomaaliya shirkaddii Talyaaniga ahayd uga iibsatay saamigeedii ahaa 49% sidaasi ayayna Somali Airline ku noqotay shirkad ay si dhammaystiran u leedahay dowladda Soomaaliya waxay samayn jirtay duulimaadyo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ahba waxayna waqti ka mid ahayd diyaaradaha Afrika kuwooda ugu fiican 27 sano oo ay shaqaynaysay kadibna waxay gebiye ahaanba howlaheedii istaageen sanadkii 1991 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka kadib dagaalkii 1977 ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa dalka ka bilowday qalalaase siyaasadeed iyo isku dhexyaac xagga maamulka ah isku dayo afgambi gadood ciidan tacadiyo caburin iyo jabhado hubaysan oo dowladda dagaal kula jira ayaa si xawli ah ku bilowday xukuumaddii kacaanka oo arrintan aad uga biyadiidanayd ayaa dhankeeda tacadiyo kala duwan kula kacday dad rayid ahaa oo ay aaminsanayd inay hiil u yihiin jabhadaha hubaysan siyaasiyiinta waxgaradka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa xabsi ku mudan jiray haddii lagu tuhmo in ay xiriir la leeyihiin jabhadaha jeelka Mandheera ayaana caan ku ahaa in lagu xiri jiray dadka jabhadaha ka tirsan iyo kuwa looga shakiyaba xilliyo badanna waxaa dhici jirtay in dad shacab ah loo toogto sababo la xiriira inay ahaayeen kacaandiid iyo qaran dumis sanadkii 1984 maxkamadda ciidanka ayaa dil toogasho ah ku xukuntay 7 dhalinyaro oo arday ahaa oo ka mid ahaa dadkii ku xirnaa jeelka Mandheera xukunkan ayaa kiciyey kacdoon dadweyne oo aad u adag 24 bishii 11 sanadkii 1984 maalin sabti ah diyaarad ay leedahay Somali Airline oo nooceedu uu yahay Boeing 707 safarkeeduna ahaa magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga ayaa ka duushay garoonka magaalada Muqdisho waxayna ku sii hakatay magaalada Berbera waxa la socday 130 qof oo isugu jiray rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda markii ay ka kicitintay garoonka Berbera hawadana ay ku jirtay muddo ku dhow 30 daqiiqo ayay rakaabkii ka soo dhexbixeen 3 qof oo afduubayaal ah waxayna xoog kula wareegeen qolka laga maamulo diyaaradda 3 nin ayaa kala ahaa 3 Degle Cawil Cadami oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed Baasha Diig iyo Axmed Waraabe oo macallimiin ka ahaan jiray dugsiga hoose dhexe ee Biyadhacay oo ku yaalay magaalada Hargeysa 3 Degle Cawil Cadami oo ahaa hogaamiyaha kooxda afduubka geysatay ayaa xoog ku galay qolka diyaaradda laga hago gabar ka mid ahayd shaqaalihii diyaaradda ayaana isku dayday inay u diido inuu u gudbo halka uu joogo duuliyuhu kadibna isqabqabsigoodii ayaa waxaa soo dhex galay nin ka mid ahaa shaqaalaha amniga ee diyaaradda Cawil Cadami oo ku hubaysnaa bistoolad ayaa dhaawacay askarigii amniga diyaaradda qaabilsanaa kadibna isaga iyo kooxdii la socotay ayaa xoog ku galay halkii uu joogay duuliyaha diyaaradda oo lagu magacaabi jiray duuliye Maxamuud Dhagax waxay duuliyihii u sheegeen inay diyaaraddu iyaga u afduuban tahay halka ay rabaanna uu u jiheeyo kooxdii afduubayaasha ahayd ayaa duuliyihii ku amray inuu ka dejiyo magaalada Cadan oo waqtigaasi caasimadu u ahayd dalkii la oran jiray Koonfurta Yemen maamulka hawada Koonfurta Yemen oo ay la xiriireen kooxdii afduubka
ayaa iska diiday codsigii ahaa in diyaaradda laga soo dejiyo Cadan, waxayna dowladdii Soomaaliya iyo caalamkaba ku wargelisay in diyaarad ay leedahay Somali Airline la afduubtay. markii uu fashilmay isku daygii Cadan ay codsi kale u dirsadeen dowladda Djibouti, iyaduna waa ay ka biyadiiday inay dalkeeda ka soo dejiyaan diyaaraddan afduuban. labadii isku day markii lagu guuldaraystay ayay duuliyihii ku amreen in uu diyaaradda u jiheeyo dhanka dalka Liibiya. hogaamiyihii Liibiya Korneyl Muammar al-Qadaafi iyo madaxweynihii Soomaaliya Generaal Maxamed Siyaad Barre ayaa ahaa kuwo aan isku fiicnayn, xilliyo badanna ay xurguf siyaasadeed dhex martay. Qadaafina waxa uu saaxiib dhow la ahaa jabhadihii dagaalka kula jiray xukunkii Maxamed Siyaad. afduubayaasha oo xiriirka aan wanaagsanayn ee labada dal ka faa'iideysanaya ayaa duuliyihii ku amray inuu diyaaradda u kaxeeyo dhanka caasimadda Liibiya ee Tripoli. duuliyihii ayaa kooxda ku wargeliyey in diyaaradda uusan ku jirin shidaal geen kara dalalkii u dhowaana. haddii ay shidaal ka qaadan lahaayeen ay u diideen in ay dalkooda diyaaraddu soo caga dhigato. ugu dambayn kooxdii waxa ay duuliyaha ku amreen inuu diyaaradda u kaxeeyo dhanka magaalada Addis Ababa. wakhtigaasi weli dagaalkii adkaa ee labada dal ka dhexeeyey si rasmi ah uma dhammaan. labada xukuumadood ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayay mid walba dalkeeda hoy ka siisay jabhado mucaaradsan midda kale. kooxda afduubayaasha ah ayaa Itoobiya ogolaanshiyo ka helay in ay diyaaradda Somali Airline ee u afduuban ka soo dejin karaan garoonka Addis Ababa. sidaasi ayayna diyaaraddu u caga dhigatay iyada oo 818 rakaab ah iyo 12 shaqaalihii diyaaradda ahaa. kadibna dowladda Itoobiya iyo kooxdii afduubatay diyaaradda ayuu wada hadal u bilowday, waxaana ugu horreyn lagu heshiiyey in afduubayaashu ay sii daayaan 22 qof oo isugu jiray dumar iyo carruur. waxa kale oo la sii daayay dhowr qof oo ajaanib ahaa oo dalalkoodu ay soo wakiisheen Itoobiya. kadibna waxaa bilowday in kooxdii diyaaradda afduubatay la weydiiyo sababta iyo ujeedka ay rabaan inay ku gaaraan afduubka diyaaradda si wada xaajood loola furo loogana badbaadiyo diyaaradda iyo rakaabka saaranba. afduubayaasha oo u hadlayey hogaamiyahoodii Saddex Digle Cawil Cadami ayaa dalbaday in dilka lagu fulinayo beri oo ahayd 25kii bishii 11aad sanadkii 1984 7 arday oo ku xirnaa jeelka Mandheera la joojiyo, iyo in maxaabiis u xirneyd arrimo siyaasadeed oo 14 qof ahaa la sii daayo loona gudbiyo dalka Djibouti. kooxda ayaa afhayeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo ahaa madaxa wada hadalka u sheegay in haddii ardaydaasi beri la toogto ay iyaguna toogan doonaan mas'uuliyiin ka tirsanaa dowladda Soomaaliya oo saaran diyaaradda u afduuban, uuna ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka Waqooyi Galbeed Generaal Ibraahim Afkaab. kadibna ay qarxin doonaan diyaaradda. culayska ugu weyn ayaa ahaa in Itoobiya iyo Soomaaliya wax xiriir diblomaasiyadeed ah uusan ka dhaxayn xilligaasi. Talyaaniga oo 2 qof ay diyaaradda ka saarnaayeen ayay Itoobiya ka codsatay in ay arrinta soo galaan. safiirkii Talyaaniga ee magaalada Addis Ababa joogay ayaa loo xilsaaray in dalabka afduubayaasha uu u gudbiyo dowladda Soomaaliya. xiriirka safaaradda ayaa keenay in dowladda Soomaaliya ay ku wargelisay in aysan jirin cid 25 bisha 11aad la tooganayo. sidoo kalena xukunkii kacaanka ayaa sheegay inaysan diyaar u ahayn inay aqbalaan codsiga kooxda afduubayaasha ah ee ku aadanaa siideynta maxaabiista arrimaha siyaasadeed u xiran. waxaana dhacday muddo 5 jeer ah inuu fashilmay xiriirkii lagu kala dabqaadayay kooxda diyaaradda afduubatay iyo xukuumaddii Soomaaliya. cadaadis dalal badan oo caalamka ah ka yimid iyo xiriiro meelo badan laga sameeyey ayaa ugu dambeyn 27kii bishii 11aad ay dowladda Soomaaliya ogolaatay dalabkii afduubayaasha. war-saxaafadeed laga akhriyey raadiyo Muqdisho ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aqbashay dalabaadkii ay dalbanayeen afduubayaashu ayna joojisay dilkii lagu fulin lahaa dadkii ay maxkamaddu xukuntay ee ku jiray xabsiga Mandheera. farintaasi ka timid dowladda Soomaaliya ayaa soo afjartay 75 saacadood oo wada hadal ah oo u socday iyaga iyo kooxdii afduubatay Somali Airline. rakaabkii ayaana diyaaradda laga soo dejiyey. diyaaraddii ayaana dib ugu laabatay magaalada Muqdisho 28kii bishii 11aad 1984. dowladda Itoobiya ayaa magangeliyo siyaasadeed siisay 3 nin ee afduubka geysatay.